شكرا يا ربي شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada kanaalkeena cabdifataax media. hadday tahay boqoshadaada ugu horeysa ha iga ilaabin inaad subscribe inoo saarto, aad like aad saarto. like waxay cadeynaysaa inaa cashirka aad fahantay. insha allahu tacaala cashirka ayaa sii gudagelaynaa, nala socda. aad baa umahadsantihiin sida quruxda badan aad inoola socotaan mar walba. cashirka ayaa sii gudagelaynaa. what is a knowledge? knowledge. What is a knowledge? What is a knowledge? Waa maxay aqoonta? What is a knowledge? Waa maxay aqoonta? A knowledge is the key of progress. A knowledge is the key of progress. A knowledge aqoontu is the key waa furaha of progress ee horumarka. A knowledge is the key of progress. A knowledge aqoontu is the key waa furaha of progress ee horumarka. Knowledge aqoon waay, key furo waay, progressna horumar waay. A knowledge is the key of progress. aqoontu waa furaha horumarka. What is a sanitation? What is a sanitation? Waa maxay nadaafada? Sanitation nadaafad waay. What is a sanitation? What is a sanitation? What is a sanitation? Waa maxay nadaafada? A sanitation is half of a grid. A sanitation is half of a grid. A sanitation nadaafadu is half of a grid. waa imaanka kala barkii. A sanitation is the half of a grid. A sanitation is the half of a grid. waa nadaafada imaanka kala barkii. A sanitation is the half of a grid. A sanitation nadaafadu is the half of a grid. waa imaanka kala barkii. What is a polite? What is a polite? What is waa maxay a polite? aadaab ama akhlaaq isku mid waa labadaba. waa isticmaali kartaa polite, aadaabna u isticmaali kartaa, akhlaaqna u isticmaali kartaa. What is a polite? waa maxay aadaab? What is a polite? waa maxay aadaab? A polite is the first step of the education. A polite is the first step of the education. A polite is the first step of the education. A polite aadaabta is the first waa tilaabada of education. Of the education ee waxbarashada. A polite aadaabtu is the first step of the education. waa tilaabada ugu horeysa ee waxbarashada. A polite is the first step of education. aadaabta waa tilaabada ugu horeysa ee waxbarashada. A polite is the first step of education. A polite is the first step of the education. A polite aadaabta waa tilaabada ugu horeysa ee waxbarashada. A polite is the first step of education. A polite is the first step of the education. A polite aadaabta is the first waa tilaabada of the education ugu horeysa ee waxbarashada. Have you a book? Have you a book? ma haysaa book? Have you a book? ma haysaa book? Have you a book? Have you a book? ma haysaa book? Yes, I have a book. Yes, I have a book. Yes, ha, I have a book. Ha, waxaan hayaa book. waxaan hayaa book. Yes, I have a book. Yes, I have a book. Ha, waxaan hayaa book. Yes, I have a book. Ha, waxaan hayaa book. Where is your book?
Where is your book? Where is your book? Where is your book? Aaway buugaaga? Where is your book? Where is your book? Where is your book? Aaway buugaaga? My book is on the table. My book is on the table. My book, buugayga, is on the table. Wuxuu saaran yahay miiska. My book is on the table. My book is on the table. Wuxuu saaran yahay miiska. My book, buugayga, is on the table. Wuxuu saaran yahay miiska. My book is on the table. Buugayga wuxuu saaran yahay miiska. Where is your pen? Where is your pen? Where is your pen? Aaway qalinkaaga? Where is your pen? Aaway qalinkaaga? Where is your pen? Where is your pen? Aaway qalinkaaga? My pen is in my pocket. Pocket. My pen, qalinkayga, is in my pocket. Wuxuu ku jiraa jeebkayga. My pen is in my pocket. My pen is in my pocket. My pen, qalinkayga, is in my pocket. Wuxuu ku jiraa jeebkayga. My pen is in my pocket. Wuxuu ku jiraa jeebkayga. My pen is in my pocket. qalinkayga wuxuu ku jiraa jeebkayga. insha allah cashirkeena halaas ku okey. fadlan hadda cashirka aad fahantay hanaga xaasidin ina like inoo sarto. like waxay cadeynaysaa ina cashirka aad gashay. muuqaalkana sii share garee oo la wadaag asxaabtaada. fadlan hadda ku cusub tahay subscribe saar. aad baa u mahadsantihiin. insha allah cashirka xiga intaan kulmi doonay in kale. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa maxay kalsoonidu? in uu qofka naftiisa ka dhaadhiciyo kolka horeba in aanu waxba qaban karin. in uu iska dhaadhiciyo in uu yahay qof liita oo aan dadka la jaanqaadi karin. in uu noqdo qofka ka baqa soo bandhigida fikirkiisa. in uu ka baqo ka jawaabista su'aalaha uu garanayo. in uu hamigiisa ka tanaasulo isaga oo ka baqanaya guuldaro ku timaada. wuxuu ka baqaa guuldarada taasoo keenta inuusan